السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح wanaagsan Soomaaliya meel kasta joogtaan aad baan idin salaamayaa waan igu walaalkiin sanka halka ay daawanaysan oo banaadir vision ku soo dhawaada gacan fureen saafiya maalin walba iyo markii walba iyo waqti walba idin tahay subax wanaagsan galab wanaagsan duhur wanaagsan saaka jawiga aad buu u qurux badan yahay anigana maanta waxaan u soo baxay banaanka xogaa yar socod yar xasameynaya exercise yar oo jeedaan marka exercise kan wuxuu fiican yahay sida maskaxda jirka meel walba u fiican yahay waxaan leeyahay marka dhamaantiin meel kasta joogtaan waa subax wanaagsan ama galab wanaagsan ama duhur wanaagsan waxa idin tahay saaka waxaan doonayaa marka inaan ka hadlo arrintii arrimo yar oo macnaha dadka ayaantan ay aad u bumbuuninayaan hees baa ahayd dadku waa dagaala dabadeed heshiiya marka dadku waa dagaalan waana la heshiiyaa arrinta waxaan arkay waxa la CK iyo Drisle dagaalkoodii iyo heshiiskoodii iyo waxoodii meeqa ay dagaal jirtay meeqa heshiin jirtay oo in badan marka waxaan leeyahay inta isku calolfiyoonada horo socda inta caloosha waxa isugu haysanada iscafiya sababtoo ah adduunku waa laba maalmood labadaas maalmoodna waxa loogu talagalay in enjoyment iyo nolol iyo raaxo iyo macnaha deganaan xasilooni haday imaan waysa labadaas maalmood gudahoodana سيدا أدونك وفرحت إسكا فرح ما أنت وفرحسنتها بري وفرحسنتها بري دم بوحنا نقولنا الله أعلم مسينو لان دونتا ما دمان دونتا معناها أدونك هذيك لقوم السنين لقوم الدهن أنت سوم الموضوع نولان يسا أنت سوختي جوجي سال لقوم الدهن يعقوب لانقاذ إن هذه لا سمعت دم بجاريست قلبت إن جاريست يعقوب لانقاذ مركا أنت أصلا حاجاتها معناها ضدك تجعله ضدك شيء معناها ميلها لو تجعله إنك الصعيانة السوشيال ميديا آد بقول كيبو صدّن dadka isugu wada dhagan yihiin ma aqaan sanadkii horena wuxuu ahaa sanadkii sanadkan corona isoo sii daba yaaqay u yahay wuxuu noqday dagaal marka Soomaaliya waxay tahay waxa sanadna corona iyo naga qaadanin sanadna dagaal iyo buuq iyo naga qaadanin karaal noqdo xogaad meesha ag maraya waxa ka daaran tahay music marka horta niman noloshiisa meel baa la geliyay ninka geedaha jaraya noloshiisa geedaha ku jirta mid baa dhulka tiraya noloshiisa dhulkaas inuu tiraya ku jirta mid baa pilot diyaaradaha kiciyo noloshiisa halkaas ku jirta marka idinkana ay noqonin in qof ku dhagtaan in qof caysaan in qof la dagaashaan in qof macna maanta wax ka sheegtaan ayda sideeda ma wanaagsan wallahi billahi qof hadaa caysid maanta bari dama caysid aydiisa meel ay kula gaaraysa ama meel wax ka geenaysid ma laha ana waxaan kula talin lahaa marka qof walba oo Soomaaliyeed ama qof walba macnaha daawanaya maanta إنيدان عايدة كفوجانين صابتوا قفك عايزت وح كفايدة ملها وح كهلس أنت ملها آخرية دون واتكو خسارة ساون أنا هذا مش نصفر استمانت أقف السجد وما أنت عايدي سيعيبتي سبنان كأن كانوا أديك أنا كوما فعنا أنا جاني ما فعنا صابتوا أديك واحد أنهم بنكاش شيء أنا جانا ملنا هنا ما إسقرسي مركا ما جعله خف بنا هذا أنا جو كده جاني ماركيسان أنا يقول لي كده جاني ماركيسان صابتوا waxaa la banaankiis maradiisa geed ma qabsato sababtoo aniga waxaan jeclahay xogaa ka raal noqdaan iftuuraya barbaan yar oo orday marka aniga waxaan ahay qof shakhsi ah noloshiisa maalinku dhashay ilaa maanta magaciisa dhisay magacaygana macnaha waqti badan buu soo qaatay inaan dhiso magaca intaas dhisay hadii maanta ay noqoto in abarzeen magacaan dhisay marka hadii ay noqoto inaan laba maalmood carab ku shugo oo aan waqti dheer u qaato magacayga sababtoo ah maalinkan dhashay oo idin magacayga bixisay magacaygii waa soo socday waa soo weynaaday school baan galay college baan galay wax ka soo baxay maanta reer baan leeyahay anigoo maanta reer kale oo faraxsan oo meel degan haddii qof inta iska soo fariisto oo cambaareeyo oo waxyaabo aniga aan lahayn iyo been iyo mardadaba iyo balaayo uu la soo fariisto waa mid aniga u yeelay Soomaa sababtoo ah aniga waxaan ahay hay taaban ma ku taabanay hadaad banaanka iga marto ana banaanka ka maraya saa waligaa in social media ku soo dhex jiray hadda waa sanadkii afraad sanadkii saddexaad ay socdo anigoo 3 sano iyo 4 sano ku soo dhex jiray social media oo aan qof weligii isdagaalin qofna aan isqabsanin aan macnaha la dhigi karin maanta Cabdisalaan saas ugu suubiyay oo macnaha waa qof noocaas ah in qof intuu soo fadhiisto xaga sheega ma jeclay
marka danta inta arrintaas dhan waxaa ogol leeyahay mataqaanaa oo waxaas oo sheegaya sanadkan wuxuu noqday sanadka laba qof inta u soo fariisato YouTube isku kala kacsato la isku caayo ya xogaa idin yar istaagay waxay noqotay in la isku caayo in macnaha la dhaho hebel baa ka caybadiyay hebel baa saan noqday TikTok la soo fariisanaya laba bamada laga soo caytamaya YouTube la soo fariistay legend baa YouTuber ah waa laga baxay waxa la tagay maxaa la hayn TikTok lagu noqonaya inta soo follow wata aniga caana ah caannimada walaalo adiga waxa isgaarsiisa maaha waxa Soomaali ku gaarsiisa waay ya aniga qof shakhsi gooni ah uma dhixay macnaha caana ah iyo kan uu ahay qof amaanta ka hadlaya ama hadalkayga uu ku socdo ma laha laakiin si hadalkayga wuxuu ku socdaa qof walba ee garaad leh ee wax fahmi kara sababtoo ah in waxa la dhahaa ama meesha ka maqno ama ka muuqo ama ka maqno ama ka muuqo macnaha ama ka maqno ama ka muuqo macnaheedu waxay tahay ama YouTuber ahay oo macnaha sharafta lagu joogo ku joog ama iskaga maqno oo de magaca YouTuber-nimadii ku raacin oo been iyo macnaha mardadabi iyo qof lagu dhagiyo qof la caayay ka raqon ya waxay ka tahay waanadana sideedaba waxaa la dhahaa qofka walaalka oo ku jecel wax ku waaniyo wax ku sheego aniga waxaan ahay qof Soomaaliyeed waxaan ahay YouTuber inkastoo macnaha aan hadda aaminsanahay inaan wali aniga caan aan noqonin wali meesha aan rabay aan gaarin ya saas ay tahay haddana wali dad baa igu xirno idaawado dadka idaawanaya iyo dadka igu xiran iyo dadka sharafteeda iyo haybadeeda ee waxaan ahay waxaan gudub yaqaan waxaan leedahay madaxa korkiisa ay saarantiin madaxa korkiisa diyaarada korkiga maraysa madaxa korkiisa meel aan ahayn oo la idin saara karo ma laha marka walaalayaal waxaan leeyahay ummadeena meel xun bay ku sii socotaa god xun bay ku sii socotaa social media wareeriyay social media meel khaldan ka tuuray qof walba maanta indhaha soo kala qaadaba hadduu dhaho aniga hebel wuxuu dhaho maan dhihi waaye hebel wuxuu gudamaan gudi waaye waxyaabo badan naga khaldamaya marka waxaan idin leeyahay video xiga inta kulmi doona insha Allah hadalkaygana iyo si xun idin gelin yaana si xun loo qaadanin qofka dad waxa jira macnaha kaliya waxa waaye inaan waxaan jeclahay aan qofka bini'aadanka ah wixii aan ku dhaamay iyo wixii aniga aan soo bini kara aan ku u sheego ama aan la wadaago marka video xiga inta kulmi doona Ilaahay ilaado waxa idin kasi tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh eesha Soomaaliye fahma kala lahayn barade qabiilka laga bogsado eesha Soomaaliye fahma kala lahayn barade qabiilka laga bogsado eesha Soomaaliye fahma kala lahayn barade qabiilka laga bogsado eesha Soomaaliye